dhismaha wadooyinku waa kan ugu muhiimsan ee kaabayaasha nolosha bulshada halbeega lagu cabiro mashaariicaha guuleystay ee muddada 2 sano ee kulmiyaha maantana waxa safka hore kaga jira horumarinta jidadka dhismaha dawga isku xidha magaalooyinka Ceerigaabo iyo Burco oo xukuumaddu maalgelinaysaana waa ka ugu weyn kuwa taabagalay barnaamij siyaasadeedkii kulmiye ee uu hogaaminayay madaxweyne Biixi ayaa lagu dhigay in xisbigu aqoonsan yahay muhiimadda jidadku u leeyihiin horumarka dhaqaalaha isku xidhka bulshada iyo isu socodka dadka haddaba ayada oo taasi laga duulayo 2 sano kadib maxaa qabsoomay sanaag ayaa heshay dariiq laamiya 195 kiiloomitir ayaa la dhisay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo ka duulaysa siyaasadda xukuumadda ee isku xidhka dalka iyo dadka ayaana suuro gelisay muddo 2 sano 101 kiiloomitir halka markii hore ay dhisnayd 94 kiiloomitir oo kaliya mashruuca asiimka 100% dawladda gacanta ku haysa waxa soo soorshana ama waxaan soo karaysanaa aanu kara ka bixinaa totally imka ma jirto 100% mashruuca soo isku filan yahay markaanu nimid xafiiska ku dhawaad bishii waxaan bixin jirnay ilaa $128 oo kira ah lacagtaan ku soo iibsanay lacag meel kale nooga timid maaha wadada Amerika Berbera oo loo garan og yahay Berbera Corridor ayaa dhismaheedu socdaa dawladda Imaaraadka ayaa caawinaysa waxaana hagaysa xukuumadda Somaliland dayactirka wadada Hargeysa iyo Kalabaydh oo dhan 60 kiiloomitir ayaa ka mid ah mashaariicaha horumarineed ay wakaaladda horumarinta wadooyinku kor joogtaynayso dhismaha laamiga Beligubadle iyo Hargeysa oo ah wada muhiim ah ayaa iyana ka mid ah guulaha dhanka horumarka ee xukuumaddu doorkeeda ka ciyaarayso dhismaha bridge-ka isku xidha Camuud iyo Boorama dayactirka wadooyinka Laascaanood Burco Hargeysa ilaa Salaxley Lowyacdo Fardaha iyo Boorama bridge-ka Duburi la kala jabiyo waliba dayactirka joogtada ee Buurta Sheekh ayaa iyaguna ka mid ah guulaha baaxadda leh wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka u soo hoyday siyaasadda gaadiidka dawladda ayaa markii ugu horeysay la dejiyay hubinta tayada badqabka gaadiidka iyo waliba xeerka kuwa badda waa gaadiidka ayaa ka mid ah curashada waasan oo hore u socod lana kowsaday 2 sano ee kulmiyaha maanta isla barnaamijkan ayaa ku maqli doontaan halka laga yimi halkaasi loo socdaa 2020ka dhismaha biyo-mareenno iyo biriijyo ayaa ka mid ah barnaamijkaas oo dhammaystiran la soco goordhow